qisada kale waxa ay khuseynaysaa inay ilaaliyaan dumarku ammaanada dumarkay daliilu noqon kartaa waa qiso aan waqti fogeyn dhacday baa qisadaa soo wariye oo soo naqila waxa uu nin baa gabadh guursaday sheekhi waa cidka casriga mucaasirka weey ninkii baa gabadhii isku dayay inuu qarsado waxa la yiraahdaa ma qudbu sir baahay yaa aaskii labaad suuqa madow yara aha ninkaas wuxuu isku dayay inuu qarsado xaaskiisii hore soo ogaatay way daba gashay oo guriga ay hadiya jeer arrimaha xasaasi bay ku yihiin dumarku oo anteerooyinkooda aad bay u taagay marka ciyaar ma aha waxba laga ma qarin karo kullay leerkeedu meel un bay kaga soo shidi doontaa guriga uu galaabay soo hesho iskumay dhibin qof waxay aad u miyir qabto iskumay dhibin way iskaga aamusta markay ogaatay halka inuu xaas ku qabo وداء فوقي كدب وحا دنتين نكيد dhaxalkiiba la qaybiyay waxay ku qanacday dhaxalka qaybteedan thumunka ah ama 8 meelood oo meel inay gabadhii kale uu qabay la leedahay soo saamaha haduu nindito thumun ama 8 meelood oo meel bay wada yeelanayaan labada xaas marka waxay tiri haddii aad kaligaa iska qaadato gabadhii halkaasina suuq madoob aheedo kuma soo dooran karto oo kuma soo heli karto laakiin soo ilaahay kuma arkayo subhanahu wa ta'ala kol haduu ilaahay ku arkayo ha qarsanine dhaxalka gabadhii lahayd iska sii way raadisay way u tagtay gurigii bay ugu gashay xaaskii hebel qabay miyaatay ninkii uu dhintay dhaxalka intaas ay nagu soo hagaagtay dhaxalkaagii waa ka tiina way naxdayo dangala ku soo heshay waabay ku dili khatar iyadina way ka sii cajab badatay oo waxay tiri walaal aad baad u mahadsan tahay muddo ka horba dhowr bilood ka horba ninka xaasumaan ahayn oo uu ifuray xoolaha nadaala iska qaado marka sheekay taa horena ammaanadii ba xafiday tan kalena tii horena xoolaheedii ilaahay wuxuu ku ilaaliyay tadambo iyaduna ammaanadii xafid laba khaa'inadood haday ahaan lahaayeen way isku dhalaali lahaayeen Soomaa way isku qarxi lahaayeen